Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada saaxiibayaal warbixin ku saabsan mid ka mid ah wadamada ugu awoodda badan qaaradda Yurub. Wadanka Turkiga. Turkiga waa dal laba qaaradood u dhaxeeya. Badankiisu wuxuu dhacaa galbeedka Aasiya. Qaybta soo hartayna waa in yar oo ka tirsan jasiirad lamuudka Balkanka, taas oo dhacda koonfur bari Yurub. Qaybta qaaradda Yurub waxay ka socan tahay mandiqada weyn ee Anatolia, waxayna u dhaxaysaa bad yar oo la yiraahdo Marmara. waa dal xuduud la wadaagta ilaa 8 dal oo Yurub iyo Aasiya dhaca, kuwaas oo kala ah Greece, Bulgaria, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Iran, Iraq iyo Syria. waa dal istiraatiiji ah oo ku fadhiya masaafo weyn, waana dalka 36 ugu weyn dunida. jihooyinkiisa badankood bado ayaa ka xiga. tirada dadka ku nool wadanka Turkiga waa 85 milyan oo qof, waana dalka 18aad ee ugu dadka badan dunida. 70 ilaa 80% dadkaas waa dadka Turkida, halka inta kale ay yihiin qowmiyadaha Kurdida, Carabta, Laaska iyo kuwa kale. 15 ilaa 20% ayna ka yihiin Kurdida dalka. dalka Turkiga waa dal taariikh fac weyn oo fog leh. waa dal haysta kayd taariikheed oo ballaaran, waana dal dhaca mandiqada istiraatiiji ah oo laba qaaradood isku xirta. waa dal caan ku ahaa boqortooyada Cusmaaniyiinta oo dalal aad u badan iyo dhul ballaaran muddo aad u badan ka talinaysay. Turkigu waa dal maanta ka mid ah wadamada siyaasad ahaan, aqoon ahaan, dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba kuwa jaangooya xaaladaha dunida. waa dal dhan walba ka hormaray tan iyo intii uu qaatay nidaamka jamhuuriga oo 100 sano ka hor ah. maanta Turkigu waa xubin awood badan oo qaramada midoobay ah. waa xubin waqti hore ee NATO, xubin ka mid ah IMF, ahna xubin ka mid ah Bangiga Adduunka, kana mid ah aasaasiyaashii ururka ganacsiga adduunka iyo ururka G20. sidoo kale waa xubin ka mid ah golaha Yurub. dhaqaalaha Turkiga iyo dadaaladiisa arrimaha dibadda ayaa saamaxay in loo aqoonsado awood mandaqada ka jirta, halka mandaqada u dhaca ay siisay mudnaan ah in juqraafi ahaan siyaasadiisu noqoto mid muhiim ah iyadoo la marayo taariikhdiisa weyn. Turkigu waa dal nidaam ahaan Almaani ah, horeyna u ahaa jamhuuriyad baarlamaani ah, kaas oo 2017 qaatay nidaamka madaxweynaha. nidaamkan ayaa dhaqan galay kadib doorashadii 2018. Rajab Tayyip Erdogan oo ah madaxweynaha dalka ahna hogaamiyaha xisbiga talada haya waxa uu dhaqan galiyay tallaabooyin lagu kordhinayo saameynta Islaamka, laguna weeqayo siyaasadda Kemalistiga ee muddo badan dalkaas lagu dhaqayay. Turkigu waa dal dhaqaale ahaan ballaaran, waana dalka 17aad ee dhaqaalaha ugu badan caalamka haysta. waa dal ka mid ah ururka G20 ee nidaamka warshadaha ku hormaray. waa dal wax soo saarkiisu Yurub iyo Aasiya aad ugu baahay. 800 bilyan ayuu dhaqaalaha Turkiga kor u dhaafaya. waxyaabaha uu aad ku soo saarana waxaa ka mid ah baabuurta, qalabka guryaha, qalabka dhismaha, maraakiibta, hubka, qalabka elektaroonikada, nidaamka bangiyada, sifaynta saliidda, daawooyinka, cunnada, macdanta iyo birta. waa dal koboc dhaqaale sameynaya 30 sano ee la soo dhaafay,
kaasoo aad u horumariyay kaabayaashiisa dhaqaalaha. dadka Turkidu waa dad haysta nidaam waxbarasho aad u wanaagsan. dadka wax qora waxna akhriya ayaa ka ah dalka 94% in ka badan 190 jaamacadood ayaa ku yaala gudaha Turkiga. sidoo kale dakhli sanadeed ka soo gala qofka Turkishka ah ayaa gaaraya sanadii 25,000 ilaa 30,000 oo dollar liisan. Turkiga waa dal dalxiisayaal badan ay soo booqdaan, taariikh weyn ay ku duwan tahay. xarumaha UNESCO u diiwaan gashan ee Turkiga ku yaala ayaa gaaraya 17 xarumood. sanad kasta ku dhawaad 40 milyan oo dalxiisayaal u badan Jarmal iyo Ruush ayaa soo booqda dalka Turkiga. garoomada diyaaradaha ku yaala Turkiga ayaa kor u dhaafay 100 garoon. in ka badan 30 garoon oo kamid ah waa international ama kuwa caalami ah. waxaa ku yaala mid kamid ah garoomada ugu ballaaran dunida, waxaana la rajaynayaa inay isticmaalaan mustaqbalka 150 ilaa 200 milyan oo rakaab ah. diyaaradda Turkish Airlines waa diyaaradda kamid ah diyaaradaha ugu wanaagsan dunida. 5 sano oo xiriir ah ayay ahayd diyaaradda ugu wanaagsan Yurub 2011 ilaa 2015. sidoo kale diyaaraddan ayaa ah mid booqata dalalka ugu badan caalamka, kuwaas oo gaaray 121 dal oo caalamkan dhaca. dhanka baraha bulshada in ka badan 40 milyan oo qof ayaa isticmaala gudaha Turkiga. hanaanka caafimaadka waa mid kamid ah kuwa dowladdu maamusho. celcelis ahaan nolosha Turkiga ayaa gaarto sida la qiyaasayo 75 sano qofkiiba. muslimiinta ayaa wadanka ka ah 80% wax ka badan. ugu dambeyntii dhanka ciidamada Turkiga ayaa ah kuwa aad u awood badan. Turkiga ayaana kamid ah 10 wadan ee ugu awoodda badan dhanka militariga dunida oo dhan.